waxaan isugu keenay inaan kelmado kooban ka idhaahdo mawduuca maalmahan Somaliland gaar ahaan guud ahaan dunida oo dhan lagu mashquulay ee ka hadlaya jaamacadda hablaha ee Barwaaqo iyo dugsiga Abaarso waqti badan ku qaadan maayo ka waalid ahaan aniga iyo waalidiinta kale iyo ardayda iyo dadka ehelka u ah ardayda Barwaaqo iyo Abaarso aad bay noo dhibaysaa meel ka dhac bay nagu tahay in maalin walba dadaan mas'uul ahayn oo aqoon yar oo ujeedooyin kala gedisan iyo ajandayaal wata ay caruurtayada iyo hablahayaga iyo caarkayaga warbaahinta kala gedisan ee dunida meel walba ay soo dhigaan iyagoo ka sheegaya waxyaabo fool xun oo afka la soo marin karin oo qof xishood iyo dhaqan leh aan ku hadli karin marka run loo hadlo maanta dawlad bay nahay qofka sharaftiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa waxa damaanad qaado ilaalinaya shuruucda dalka iyo qawaaniinta dawlad dawlad wixii ka horeeyay dawladnimada dadka noocaas oo kala ah xabad baa lagu dhufan jiray ee caarka iyo dumarka iyo caruurta waxaan dhaqankeenu fasixi karin oon sheegi karin oon afka la soo marin karin u quuraya ee markuu waayay sharci adag oo ka qabta iyo dawlad iyo hay'adaha dawladdu inay fuliyaan shuruucdaasi ka gaabiyay waxay fasaxaysaa in gacanta la iskula tago sidii la arki jirayna saasay ahaan jirtay gacan wax laga qaban jiray xabad baa lagu dhufan jiray noocaas oo kale ceeb doon oo kale laakiin waxay ila muuqataa inuu firaaqo helay dhaqankii caynkaas ee gacanta lagu kala aargoosan jiray laga tagay sharcigii dawladda ah ee dadka u dhaxeeyayna uu fuli waayay waxba laga qaban waayay marka dadkii xilkaska aan ahayn dadka aan xishoon dadka bilaa dhaqanka ah way ka faa'iideysteen firaaqadaasi soo baxday iskuulka Abaarso waxa la furay 2009 waa muddo 12 sano iyo badh aan ku sheegi karo arday fara badan oo boqolaal wax ka baratay 280 inan iyo gabdhood ayaa jaamacadaha adduunka loo diray kuwa ugu qaalisan ee ugu tayada fiican jaamacadaha inan afrikaano caadi amba inan afrikaano caadi ma geli karto waayo ma goyn karayaan ardayda Mareykan ee Mareykanka u dhashay ee cadaanka ah wax yar baa gooyo oo gala oo gooyo qiimahooda jaamacadaha loo diray reer Soomaaliland waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waa wax lagu farxo waa wax dadkii ka shaqeeyay abaal weyn loogu hayo
siday sheegeen dadka ku hawlan kharashka ardayda 37 milyan oo dollar baa ku baxa lacagtu yaani kula badnaani jaamacadahan loo dirayaa qaaliya waan idin sheegay Mareykanka cad boqolkiiba 20 ma goyn karaan ardaydooda ma gelin karaan jaamacadaha waxa kamid ah Harvard University waxa kamid ah MIT oo engineering ah waxa kamid ah Yale waxa kamid ah Columbus oo New York ku taala qof caadi ma galo halkaas ay arday reer Soomaaliya gashay dalkoodina way ku soo noqdeen waxa kaloo aan doonayay inaan hoosta ka xariiqo ardayda dunida oo dhan naga tagtay ee waxbarasho u tagtaa meesha kaliya baasaboorka Soomaaliland ku tagaan amba ardayda kaliya baasaboorka Soomaaliland iyagoo sida u lulaaya ku gala Mareykan waa ardayda abaarso iyo barwaaqo waa guul weyn oo dawlamaasiyada oo Soomaaliland soo heeyay inay baasaboorka Soomaaliland ku tagaan ardayda jaamacadaha gashay reer Soomaaliland oo markii horeba halkan laga dhisay markay jaamacadaha noocaas galeen waxay ka gaareen guulo la yaab leh oo aad loo la yaabay tii waxay soo jiidatay warbaahinta Mareykanka ee faraha badan ay soo jiidatay ardaydii reer Soomaalilandna warbaahinta ay soo jiiteen waxay kaga faa'iideysteen inay Soomaaliland qadiyadeeda dadka Mareykan u gudbiyaan 280 ka hablood iyo inamo ee Mareykan tagay waa 280 safiir oo ka shaqo badan oo ka saameyn badan safiiradeena inoo magacaaban ee dunida jooga waayo warbaahin caalamiya oo aad u awood badan oo caalamka oo dhan gaadho oo laga daawado iyagoo ka faa'iideysanaya ayay ku bandhigeen amba ay ku soo bandhigaan qadis Soomaaliland inan walba oo abaarso amba barwaaqo ka tagaysa amba inan kasta calan 10 waar ah oo reer Soomaaliland calanka Soomaaliland ayuu sii laalaabtaa ayuu shida ku ritaa wuxuu suraa hoolka weyn ee jaamacadda ee lagu qabto doodaha jaamacadda oo qaarkood ilaa 30,000 oo qof ay qaadaan ayay suraan oo dadka ku jira warbaahintan muxuu ahaayay social media qaar badan oo ka mid ah waa arkeen ma aha arday kaliya wax barata waa tabliiqiin ku wareega oo ku wareejiya gobolada Mareykanka qadiyada Soomaaliland in badan oo aqoonna way u sheegeen in badan oo taqaanana way u sii kordhiyeen aqoontoodii waxaan ku soo koobayaa Soomaalida barigii hore waxa loo oran jiray waa dad abaal leh imakana waxaan qabaa inay yihiin dad abaal leh laakiin noocan oo kale ee abaarso iyo barwaaqo wax ka sheegaya waxay bixinayaan sawir ah Soomaalidu inaanay abaal lahayn mid kale idin sheegaya oo saameyn weyn kooxaha campaign-ka ugu jira in abaarsa iyo barwaaqo la xidho in xarunta dhaqanka la xidho in meelo kale oo iftiimayo Soomaaliland u iftiimayo bidhaamaya la baqtiyo fariinta kale dirayeen waxa weeye cidii nagu soo socotay joog cidii nagu soo socotay amba kambaniyaha noqdaan
amba safaaradaha noqdaan amba hay'adaha internationalka ha noqdaan amba shirkado shidaal baariya ha noqdaan amba kambaniyada u soo caymiska iyo baananka iyo hudheelada waaweyn iyo u soo haqal taagaya dekada berbera markay dhammaystiranto waa fariin loo dirayo inay joogaan oonay noo iman oo lagu calaamadiyo meesha inay ka taliyaan shabaab iyo kuwa shabaab taageera waa fariin kale khatar ah oo loo baahayay Soomaaliland inay muxuu wax ka qabsato iskuulka abaarsantaas ka haraya haddaba ololahan campaign-kan yaa ka dambeeya waxa ka dambeeya dhowr kooxood oo isku fikrad ahayn laakiin wax kale ka dhaxeeya oo ay wada guuleen oo isku raacsan yihiin waxa weeye inay Soomaaliland jilbaha dhulka u dhigaan oo baabi'iyaan taasay isku heshiis ku yihiin wax kale heshiis kuma aha kooxahaasi waxa ka mid ah koox diimeedyo marka horeba active ahaa imakana dhufays ka soo dhigtay abaarsa iyo barwaaqo iyo diin baa jirta iyo waa la gaalaynayaa waxa kaloo jira koox kale oo awalba dagaal inugula jirtay oo imaka halkan ku biirtay oo wax kooxdii farmaajo ee karaysnayd waa laba waxa jira kooxo kale oo khudbadii madaxweynaha ka jawaabaya oo wuxuu necab yahayna waan jecelahay madaxweynuhu jecel yahay amaanana waa necabahay madaxweynuhu wuxuu garanayaa ka dheregsan yahay qiimaha ugu fadhido barwaaqo abaar Soomaaliland xil aanu itaalu hayn oo inuu 280 ka isagu diro ayay ka furteen dadka maamula abaarsi barwaaqo waa waajib inuu mahadnaqo waa waajib bay ku tahay inuu amaano waana waxa ugu yar ugu abaalgudi karo kooxo waxa jira wuxuu amaano amba jeclaysto iyo weyn cibi wuxuu necab yahayna way jecel kooxankaas ay gudajir oo kamida ololahan qolada afraad dameeradha raacday baa leeyahay waa la lahaa weey waa la lahaa saasa la lahaa iyagu waa la lahaa weeyo waa group iyagu hubunka uu raacay hubunka uu iyagu raacayo dameeradha raacday oo dadku uu lahaa weey war xageed waxa ka keentay waa la lahaa waxay yiraahdaan kooxahaasi maxay waxaan oo lacag ay noogu kharash gareeyeen haddaanay ujeedo lahayn waa markay doodayaan waxaan ugu jawaabayaa ardaydeen Masar bay tagtaa oo Suudaan bay tagtaa oo Turkiga ay tagtaa oo Taiwan bay tagtaa oo Ethiopia ay tagtaa intaasiba way tagaan ujeedada kuwa laga leeyin baa laga leeyahay haddii ujeedada laga leeyahay maxaa kuwa Mareykanka tagaa ka dhigay gaalo ee kuwa Ethiopia tagaan amba Taiwan tagaa ama muxuu ahaay Masar tagaa ay u noqon waayeen gaalo waa dood jaban weey waa dad aan aqoon badan lahayn kooxaana idin sheegay doorku ceebdoon ku leeyahay waa maxay hadaba waa fayeen buu yahay waa codbaahi doorkiisu waa inta arintu way ka badan tahay coldoon
coldoon keliya doorku ku leeyahay ololahan waa afayeenkooda waana codbaahiyahooda bas arrinta coldoon ka badan ha ku dagmina waa la isbahaystay Somaliland dagaalka ilaa 19 waa lagu waday kolba gees baa laga yimanayay tani waa tu casriyaysan oo amaska madaxa ka dila halkee iftiimaysa halkee dhaqdhaqaaqaysa halkee Somaliland dadka ku xidhaysa halkee Somaliland yani muxuu ahaayay wax contribution ku soo kordhin karta maska madaxa laga dila abaarsa ka dila barwaaqo ka dila muxuu ahaayay xarunta dhaqanka ka dila meel wal oo ay sidaahdaan Somaliland way ka tamarin kartaaba ka dila markaan aan sheegay sanadkii nagadkii aakhirkiisii waxa jiray iskuul young muslim imanka magac kale loo bedelaan u maleynaya ma hubo sida abaarsi barwaaqo kala la kacay gaala lagu dhiga bible baa lagu dhiga kana lagu sameeyaa waa caynkan waa sidan ma Mareykan baa jooga young muslim maya ma joogo waxa loo arkay inuu ka mid yahay kuwa isha ay ku hayaan qoladan Somaliland ka soo horjeeda young muslim waxa loo arkay inuu yahay potential school soo saari kara generation Somaliland berito wuxuu tari kara oo ku soo kara okay barwaaqo iyo abaarsi school macallimiin ajnabiga oo Mareykan oo kaliya ahayn ayaa wax ka dhiga diimo kala gudbisana way haysan karaan jaamacadaheena ayaa ka dhiga ma Soomaali iyo wadaadda ka wada dhiga jaamacadaheena waxa ka dhiga Kenyan waxa ka dhiga Ugandese waxa ka dhiga ajnabi kale waxa ka dhiga Ethiopian boqolkiiba 95 macallimiintaas waa Kristan iskuuladeena private ka ayaa ka dhiga ma Soomaaliya wadaadda muslimka ka wada dhiga dad ajnabiya oo diinta muslimka haysan baa ka dhiga waxay gaaleeyeen maydaan maqal waxa looga sheekeeyay maydaan maqal ujeedadu qaylada maanta dhacaysa waa mid kaliya ha khaldamina diin baanu ilaalinaynaa maaha Kristan baa la faafinayaa maaha waa Somaliland sidee u ragaadisaan ee meel wal oo iftiimaysa oo loo arko inay mustaqbal leedahay ba loo dumiyaa afayeenka kooxahan anti Somaliland ee coldoon afayeenka u yahay amba ceebdoon amba codbaahiyaha u yahay si cilmiyeysan waxay u dhigeen taytalada coldoon waxay yiraahdeen mar waa samafale marna waa saxafi marna waa sheekh diinta gaarka ah saddexda taytal wuxuu qaatay waa saddexda minhadood amba shaqo ee mujtamaca reer Soomaaliland ixtiraamaan waa samafale waa laga joogsanay waa saxafi waa la ixtiraamaya waa sheekh diinta islaamka ilaaliya waa laga baydhaya waa kafarab taytaladani waa taytalo mujtamaca Somaliland ixtiraamaan oo ay jecel yihiin
markaa ninka khaayinka doonaya inuu dhuunto amba aan lagu soo degdegin markuu sharciga jabiyo ayaa la baxatay taladan dad aan waxba ogaan waa samafalaa la xidhay saxafi baa la xidhay wadaad baa la xidhay sheekh baa la xidhay dadkii jeclaa waxaan mihnadahan shaqooyinkan dadkii jeclaa markay maqlaan way dib bay u furmaan waa samafalaya maxaa lagu xidhay war wadaadkii war saxafiga maxaa eegata waa organisation khatar ah warbaahinta social media gala saxafigii baa la xidhay saa loo taageerayo saxafigii baa la xidhay ninkii samafalaya masaakiinta caawinayaa la xidhay eegata wuu ugu talagalay dadkaa taageeraya boqolkiiba 85 waa reer koonfureed maxaad ku garanaysaa dee way weydiin kartaan lahjad baa jirta lagu kala garto dee dadka gobolladii ka kala hadlayaan waa ay fahamtay baan u malaynaya inta hadhay Somaliland taageertana waa kooxahan aan idin sheegay waxay leeyihiin oo u kiraysan qaar badan oo warbaahinta ka mid ah oo arrimahan ku taageera oo kiraysan xataa hadday la muddo ahayn waxaa jira culimo baydgaab ah oo masaajidada ka kaca oo diinta u aqoon yar oo koox diineed ka tirsan dadka kale oo dhanna gaalo u haysta ayaa taageera oo badyara ah waxaa taageera cid kasta kooxdu doonaha ka tirsanaado gobolku doonaha ka soo jeedo xamar ka kiraysan oo farmaajo u kiraysan oo qaar badan oo aynu naqaanaaba ay jiraan kuwaasina way taageerayaan free Aldon taasaas ka baxaya waxaan doonaya inaan iyar ka sheego waxbarashadii Somaliland marxaladaha ay soo martay waddankan waxa xukumi jiray 60 wixii ka horreeyay dowladda Ingiriiska tacliinta inta inoo maamushay madaxdii waxa ahaayeen Ingiriis gaalay ahaayeen iskuulada waaweyn oo secondary sheekh mid yahay nin Ingiriis ah haystay gaal buu ahaa macallimiinta qaar baa ahaa Ingiriis gaalay ahaayeen miyaa maqasheen arday Soomaaliyeed oo lagu gaaleeyay macallimiinta iyo maamulada Ingiriiska iyo iskuuladeena la gaaleeyay ma maqasheen markii taa laga soo gudbay ee Soomaaliya noqday isku jirkeennii oo aniguna ka mid ahaa waxa waddanka yimid macallimiin Mareykan oo la oran jiray Peace Corps ina maqasheen baa laga yaabaa dadku macallimiinta u noqdeen ka mid baan ahaa iska daa magaalooyinka waaweyn oo tuulayaasha xataa jooga Peace Corps bulaxaar baa ka mid ahayd aamina dhan cadde bay la baxday markii dambe gabadh joogi jirtay Kristan bay ahaayeen macallimiintaas miyaa maqasheen arday reer Somaliland oo Peace Corps gaaleeyeen miyaa maqasheen okay ka soo gud xamar dugsiga sare ee xamar dugsiga tababarka macallimiinta xamar abaafkooyi ayaan anigu galay iskuulka waxa maamulayaal ka ahaa Mareykan macallimiintu
inta badan waxaa Maraykan laba saddex baa Soomaali ku jiray Ismaaciil Bubaaba kamid ahaa Abdi Ismaaciil Dusa kamid ahaa Allah yarxamay Abdi Hayba kamid ahaa nin loo oran jiray baandayo isna dhintay Allah yarxamay ayaa kamid ahaa inta kale waxay ahaayeen Maraykan bay ahaa iskuulkii antik ee macallimiinta lagu tirinay afkooyay markii dambe la foola noqday arday gaalowday miya maqasheen secondary banaadir oo isna xamar ku yaala ruush baa maamuli jiray macallimiinta ruush bay u badnaayeen diinba may haysan mulxidiin bay ahaayeen ilaahay dafiray kirsankaaba ka dhow miya maqasheen ardaydii banaadir qaar baa gaaloobay amba mulxidiin noqday saa ruushkoo kale miya maqasheen waxa kaloo taa dheer ardayda Soomaaliland ee qurbaha joogta oo maanta inaguma dheew tiraahan amba Yurub ha joogaan amba North America ha joogaan amba Australia ha joogaan soo iskuul lagu daro iskuulada lagu daro si rasmi ah xiisada diinta Kiristaanka ku jirta oo ardaygan galay diintu doonada haysta qasab ku ah inuu dhigto arday baa inta iskuulada galeen ardayda Soomaalida qurbaha joogta baa gaaloobay ma maqasheen haddaba barwaaqo iyo abaarsana arday lagu gaalaysiiyay ma jirto kuwa idin shoogay ka horeeyay ayaa gaaloobi lahaa haddii gaal macallin noqday أو قاليسين أيها أرتدي في السماء وحن لا هاي أو أنت عم كدرية وأنا نهايستا اسمه وجني سكندري الشيخ مركي دلك لقى قحو بربريي اسكول كي لغو فاني جري سكندري الشيخ banaanka aynu fadhino oo kale ayuu noqday hay'ad la yiraahdo SOS oo Ilaahay inoo soo diray inay iskuulka dhisto oo keenay fikrad fiican oo awalba iskuulkani sidoo ahaa si aan loo garan in dumayba ayaanu dhisayna si aan loo garan in iskuulkaasi dumay dhagax ba halku yaalay qoribaha halku yaalay albaaba sidoo ahaa ayaanu dhisayna ninkii sheekh arkay amba ardaydii ka baxday hadday imika ku soo noqdaan waxay oranayaan iskuulkaygu ma dumin waa kii uu wax dumay iyo wax la dhisay ma jiraan oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo kuwa ka shaqeeyay ee dhisayna waa in loo mahadnaqa isna waa waajib markii la dhisaayay halkan Hargeysana waxay ka bilaabeen SOS meel caruurta agoonta iyo danyarta lagu xanaaneeyo qoladan Aldoonbariga muu jirin imku ku biiray kooxdu way jirtay waxay yiraahdeen iskuulkan sheekhe ay dhisayaan gaaladani waxa la isku keenayaa habla iyo inamo waa lagu xareynayaa waxay iska dhalaana xarun baa Hargeysa looga dhisayo halkaas la geynaya waa warshad oo kala dawladda u sawirayaan waa warshad inamiya habli halkan lagu xareynayo iskuulka la dhisayo dabeetana carruurta dhalaana waa la qaaday waxa la geynayaa xarunta Hargeysa laga dhisay ee muxuu ahaayay loogu talagalay in agooma dhagax baa laga daalay iskuulkii wala dhisi kari waay ila dawladdu u gurbatay dalka lagu dhisay maanta ilaa 400 ilaa 500 oo arday baa ka soo baxay dawladda u shaqeeyaan marka hadday dawladdu u shaqeeyaan hay'adaha u shaqeeyaan jaamacaday ka shaqeeyaan qaar baa international staff noqday durba yararkii ka soo baxay SOS halkana kun ka badan caruura
oo agooma ah oo danyar ah oo aabihii hooyaba hadda qaadee yani dadkoodii dhaqan yihiin xataa ayaa halkaana ka soo baxay oo haddana iskuulle la geeyey. fariintii qolada wadaad xumayaasha anti somalilandka ahi fariintay direen berigaa sheekh ka direen waa tii lagu dilay ninkii maamulaha iyo xaaskiisa. waa dhacdo la wada ogyaho taariikhda gashay. waxaan aad uga xumahay inaan idiin sheego ninka halkaa lagu dilay maamulaha ahaa sheekh iyo xaaskiisu soos markay haayargaraynaysay qaadanaysay waxay u direen South Africa. wuxuu South Africa meel ka baahi badan baa jirta waa Somaliland halka ka baahida badan baan tagayaa. South Africa waa dal dhisan ilaa xad. waxaan tagayaa Somaliland inaan liiskii bay haystaan wadannada ay ku qorayaan shaqaalaha ay qaadanayaan. ruuxu tanaa baahi badan oo aan u tagayaa. waa runtii arrin laga murugoodo. ninka waddan dhisan oo wax kasta oo bini'aadmigu jecel yahay laga heli karo ka doorbiday waxaan u sacrifice garaynayaa dadkaa baahan inaan wax baro ee lagu dilay abaal looga dhigay xabad in afka loo geliyo isaga xaaskiisii waa nasiib darro. waana nuqdadaha recordedka ah ee taariikhda Somaliland ku suntan ee madow weyn. ceebdoon fariintu abaarsa iyo ka diray maanta iyo kooxdiisuba dee fariintay ka direen abaarsa iyo barwaaqo miyaanay u eekayn fariintii loo diray maamulihii sheekh iyo xaaskiisa oonay ahayn ku soo hogaamiya oo laaya macallimiinta ajnabiga ee barwaaqo jooga amba abaarsa jooga amba soo booqda xarunta dhaqanka. xarunta dhaqanku wax badan ka sheegi maayo kumaan talagelin laakiin waxaan qabaa waa bridge-ka isku xidhay Hargeysa amba Somaliland iyo caalamka ayaan odhan karaa anugu. markaan soo koobo muhiimadda loo leeyahay xarunta dhaqanka waa library waa meel wax lagu akhristo waa meel dhaqanka lagu promote gareeyo waa meel lagu baro Somaliland ajnabiga. adeer ajnabi dalka imisa jooga madow iyo cadaan noloshiisa private-ka mid walba miyaad og tahay iyo siduu u dhaqmo iyo wuxuu sameeyo iyo inuu wax cabo iyo inuu waxba cabin iyo kuwa ay sheegayeen aanu afka soo marmaya ay sheegay inuu yahay yaa yaqaanay ay tira koobay dadka noocaas ah haddii jiraan dee ma rag la macaamila raggan wax nooga sheegaya ma dad la macaamilay baa raggan wax nooga sheegay kana waa caynka ee raggan sheegaya ee noloshooda private-ka iyo waxay sameeyaan ka sheekaynaya adeer ma dad la macaamilaad ah annagu garar mayna waxa jooga dhowr kun baa jooga ajnabi Somaliland yaa mid walba tira koobay siduu camal iyo wuxuu sameeyay iyo noloshiisa private-ka ayaa ka waraya. qoryaareen Somaliland sidan ku socon mayso waana la haystaa ismana oga. fariin aad u gaaban waxaan halkan uga gudbinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynow Somaliland shicibka iyo xukuumadda iyo qayb waliba bulshada ka mid ah mas'uul baa saaran. saddexda xusbi qaran ee Somaliland dhammaantood qarannimada Somaliland mas'uul baa ka saaran. mas'uuliyadda ugu weyn aday ku saaranta. fariinteedu waxa weeye haddaad dalkan madaxweyne ka tahay
waa lagula haystaa madaxweyne kayaal kalaa waddankii ka dilaaco kula haysta haddaad ogtahay iyo haddaad ogeynba si dhaqsaa in wax looga qabtay u baahantay somalilan tiyo koonfur shabaab xabad bay doonaysaa inay ku qabsato somalilan tiyo xabadi aanay dhicin ayay qabsanayaan mas-uuliyadda ugu sarraysaana inkastoo inay wada saaran tahay aday ku sii saaran tahay way gaaban tahay intaasaan ku soo koobayaa